hormuud cable TV وهيلك شعبك 6 February sanad kasta waxa caalamka laga xusaa maalinta ciribtirka gudniinka fircooniga Hargeysa waa caasimadda geyga Somaliland waxa maanta si weyn looga xusay maalinta ciribtirka gudniinka fircooniga waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland waxaana munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland mas'uuliyiin iyo waalidiin u dhaqaaqa ciribtirka gudniinka ilahan ka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyadoo ka ah hogaamintii u qaabilsan waxay samaysay siyaasad ku wajahan gudniinka gabdhaha oo dhammaan daneeyayaasha nala shaqeeya ay nagala shaqeeyeen sidii aynu bulshadeena ka wacyigelin lahayn inagoo dhinacyo badan eegayno inagoo bulshadeena wacyigelin badan siinayna waxaynu doonaynaa inaynu tusno hooyo kasta iyo aabbo kasta iyo dhalinyaro kastaaba inagoo gacmo haysaysana inaynu hawshan ka wada shaqeyno inaynu sidii waynu u ciribtiri lahayn gudniinka gabdhaha ee laga dhawaajiyay waxyeelada uu leeyahay maalintii 7 jirta ilaa iyo maalintii godka ka galayso dhaqaale ku lumaya caafimaad ahaan waxbarasho uga tagayaan muxuu ahaayay umul aroor bay ku mudanayaan maskaxiyan jiriyan maadaama ay dhibaatadaasi tahay mid waartay oo ilaa iyo maalintii 7 jirta ilaa iyo dhimashadeeda gaadhaysa waxaanu taaganahay in action la qaato xeerarka la hawlgeliyo oo la joojiyo matalaya qaramada midoobay waxaan sii xoojin lahaa in aynu joojino gudniinka gabdhaha marka waxa ayaan daraa maalin kasta in dumarkeena iyo hablaheena u dhintaan cudurro ama dhibaatooyin ka soo gaaray gudniinka fircooniga say nafiis sheegtay ilaa inta maalinta loo geysto dambiga iyo ilaa iyo maalinta ka dhimanayso waxa weeyaan wax la xalqo nolosheeda oo dhibaatadaas way haysataa hadda maxaynu u baahanahay si aynu u gaadhno inaynu noqono bulsho ka madax bannaan gudniinka loo geysanayo hablaha waxaynu u baahanahay arrimo dhowr ah oo ka mid yihiin horta wacyigelin qoto dheer oo loo geeyo bulshada ilaa halkay ku dhaqan yihiin hadday tahay magaalo iyo guri aan adduunyadu ka hadasho gudniinka iyo dhibaatadiisa halka uu marayna la iska wareysto dadkana laga wacyigeliyo ka wasaarad ahaan waxaanu taaganahay in la joojiyo gudniinka waxaanu codsanaynaa in cid kastoo ka shaqaysa aynu xooggeena midayno fariinteenna midayno qaabka aynu shaqaynana midayno si aynu wax uga qabanno arrinta ah gudniinka hablaha